cunuga yarka waxa uu jiraa 3 sano waxa uu cabayaa sigaarka. Haweeneydan sidoo kale waxay madaxa haweeneydan ka soo saaraysaa cayayaanka injirta kadibna waa ay cunaysaa. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan ku eegaynaa run ahaantii koonkan ama adduunkan aan ku noolnahay sida aynu wada ognahay bulshada ku nool isku wada dhaqan maahan, isku diin ma ahan, caado ahaan soo jireen ahaan iyo weliba xadaaradda sida maanta loo kala haysta xitaa isku mid ma ahan. Runtii maanta muuqaalkeena ayaan ku ogaan doonaa mid ka mid ah qabaa'ilada maanta sii dabar go'aya tir ahaanna aad u yar ee nagula nool koonkan maanta adduunka aan ku noolnahay, kuwaasoo aaminsan dhaqanno iyo fikirro kale oo u gaar ah oo la yaab leh. runtii qabaa'ilkan idin muuqda asal ahaan waxay taariikhyahanadu qaar qabaan inay ka soo jeedaan dalka Hindiya. haatan waxay ku nool yihiin oo ay ku go'doonsanaayeen intii weligoodba ay jireen buuraha waaweyn ee loo yaqaano Amazon, gaar ahaan kaymaha u dhexeeya ama buuraha u dhexeeya dalalka Brazil iyo Venezuela, waa dhankaas iyo Latin America. runtii qabaa'ilkan ayaa tir ahaan waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 120 ilaa iyo 130 inta u dhexeysa. runtii qabaa'ilkan ayaa waxay aaminsan yihiin dhaqan la yaab leh oo u gaar ah. sidoo kale waxay aaminsan yihiin in iyagu kaliya ay ku nool yihiin koonkan ama adduunkan oo dhan. sida idiin muuqanaysa haweeneydani runtii waxa ay sameynaysaa oo ay ka soo saaraysaa cayayaanka loo yaqaano injirta iyadoo ka baaraysa madaxa haweeneydan kale. mar alaala markii ay ka soo saarto ilkaheeda ayay ku qabanaysaa, way dilaysaa kadibna way cunaysaa. cunuga yarka ee hore ka soo jeeda waxa uu cabayaa sigaarka. ahaantii da'diisa waad qiyaasi kartaa, waa 3 sano ilaa iyo 4 sano. dhacdooyinka la yaab kale oo ay aaminsan yihiin ayay ka mid tahay. runtii qabaa'ilkan ayaa dhammaan dhacdooyinkan ay haystaan ama dhaqanadan ay aaminsan yihiin waxaa la sheegay inay ka dhaxleen fac awow ka awow ilaa iyo ka hor 300 oo kun oo sano. run ahaantii sida idiin muuqanaysa cunuga yarka haddii uu rag yahay da'daasi marka uu gaaro waxaa shardi ah siday aaminsan yihiin in sanka laga duleeliyo. sida haatan idiin muuqata cunuga waxaa laga duleeliyay sanka iyadoo loo adeegsaday qalabka dhaqan ahaan ay aaminsan yihiin iyagu. runtii ma jirta xadaarad iyo horumar ay haystaan sida bulshada kale ee adduunka, mana aaminsano, weligoodna uma aysan soo bixin bannaanka waxay ku nool yihiin kaymahaas. sida idiin muuqanaysa ninkan aad ayuu u murugoonayaa, waa uu khushuucsan yahay runtii, waana dhaqan u gaar ah markii ragga iyagu ka midka ah mid ka mid ah uu guursanayo. maalmaha guurka ka hor waa qasab inuu murugoodaa, uu fakiro iskana ooyaa. sida idiin muuqanaysa waxaa dhici doonta mid ka mid ah isla qabaa'ilkan oo ragga kale ka mid ah ayaa u heesi doona, niyadda ayuu u dhisi doonaa, wuxuuna u qaadi doonaa heese ku saabsan in guurku uu farxad yahay. run ahaantii waa dhaqanno ay aad cajiib ugu yihiin. sidoo kale waxyaabaha ay aaminsan yihiin dadkani ayaa waxaa ka mid ah in qof kale ama bini aadan kale oo maanta koonkan adduunka la yiraahdo ku nool uusan jirin, iyagoo 120 qof runtii oo sii dabar go'aya. run ahaantii sida taariikhda ku qoran 1970kii tir ahaan haatan way ka badnaayeen, maxaa yeelay waxay ahaayeen 400 oo qof sida buugaagta taariikhda waaweyn ku qoran. laakiin haatan way sii dabar go'ayaan oo way soo yaraanayaan, maxaa yeelay waa qabaa'il aad u yar, ma sii tarmayaan, way soo dabar go'ayaan. tir ahaan haatan waxay marayaan qiimeyn la sameeyay 2017 18 130 ilaa iyo 120 ilaa iyo 110 inta u dhexeysa. runtii shuruudaha ay yaqaanaan iyo dhaqanada ay yaqaanaan waxaa ka mid ah in haweeneyda markii cunuga sanka laga duleeliyo ay sidan usoo dhex fadhiisata ragga. run ahaantii sida idin muuqata wax dhara ma xirtaan, raggu qaybta hoose ay wax yar ku xirtaan iyo haweenkuba dhammaan inta kale jirkooda ma asturtaan. waa dhaqan jaahili ah, runtii way wada qaawan yihiin. cunuga marka in la dhex keeno bulshada saas daraaddeed oo ninkaas wax u aqriyo, korka uu ka riixo cunugii sanka laga duleeliyay, waa dhaqan ay yaqaanaan runtii. sida idin muuqanaysa xafladda ama farxadda ama tacsida ay qabaan dhammaan waa iskugu mid. annagoo tacsida murugo ayaan dareennaa, runtii maalmaha kale caruuskii waxaasna farxad iyo labis, balse iyagu waa iskugu mid. runtii waxay u baxayaan bannaanka, waxay soo wada jaranayaan caleemo cusub, dhammaantood waxay ku xiranayaan qaybaha hoose ee jirkooda, kama asturtaan mana dataan qaybaha sare ee jirkooda cawro ahaan. waa dhaqan ay iyagu aaminsan yihiin. sidoo kale waxay soo qaadanayaan geedo waaweyn oo iyaguna leh dheecaan kala raaca. sida idin muuqata korkooda ayay ku xardhayaan naqshado ay iyagu yaqaanaan oo u gaara ayay ku xardhayaan jirkooda. waxay ku dhadhajinayaan sidoo kale geedo kale oo xubuub yaryar ama oo duf yaryar leh ayay ku dhadhajinayaan. runtii wejiga sidoo kale ayay marsanayaan.
xitaa raggu, haweenka, dhammaan carruurta, hooyooyinka iyo aabbayaasha. Sida idiin muuqanaysa waxay isku diyaarinayaan xaflad ka mid ah xafladaha ugu farxadda badan ee maalintani soo maraysa runtii. Intaa kadib markii ay sameeyaan, raggu dhammaantood wejiga ayay marsanayaan sidoo kale si la mid ah haweenka. Runtii waxay isugu soo baxayaan haweenku iyo dhammaantood barxadda ugu dhow ee goobta ay ku nool yihiin. Runtii maalintaasi ma jirto maalin uga qiimo badan. Midoo kale waxay aaminsan yihiin sidoo kale maalinta ay xiranayaan caleemahan cusub ma xirtaan maalin walba. Waxay xiran yihiin caleemo duuga oo qalalay oo baaba'ay ayay qaybta hoose ee jirka ugu xiran. Maalinta ugu qiimaha badan waa maalinta ay soo xiranayaan kaliya caleemahani. Maalin kale ma xiran karaan. Maanta muuqaalkeena asxaabi inta ayaan kusoo afmeeraynaa. fadlan haddii aad tahay ruux ku cusub channelkeena nagula saaxiib oo saar subscribe kanaalkeena Kobciya Tube. fadlan intii aan ku kulmayno barnaamijka xiga waa Mucaawiyo idin leh sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.